bismillah asxaabta aad baan idin salaamayaa dhammaantiin meel walba aad joogtaan today waxaan sameynaynaa insha allah dot trade saa ujeedaan waxaan ku sameynaynaa waa real count okay aynu bilaabano asxaabta lacagaha ayaa noo furan good AUDGBY halkan nooga soo bilow okay waxaa weeyaan saa ujeedaan suuqa waa major downtrend hadda suuq saa ujeedaan waxaa weeyaan waa major downtrend good halkan level aynoo dhig good okay is sellers ayaa soo galay suuqa halkan halkan suuqa wuxuu ka yahay asxaabta uptrend okay aan ka warsugno meeshan laguma degdegi karo asxaabta ilaa aan confirmation helno okay this is how you Great British USD get there okay Great British USD no yes good okay lacag kalena furan haddana asxaabta AU Canada noo soo fur good this is a level aynu dhigano markaa level aynu dhigano asxaabta okay level waynu dhiganay wow this is rejection also rejection ayaan gelaynaa markaa confirmation ayaan firsanaynaa good second confirmation ayaan fiirinaynaa okay aynu aragno asxaabta suuqan wuxuu ku dhamaado haddaba five second confirmation ayaan suuqa ku galnay markaan helnay confirmation asxaabta good waan fiirina asxaabta inoogu celiyo 1 minuteska confirmationkaas suuqa wuxuu noogu dhamaaday buy good another trade ka xiga okay this also level this also a level noo soo dhawe asxaabta
Also the level. Good. Waynu dhiganaa asxaabta level. Suuqa saa u jeedaan halkan wuxuu ka yahay major downtrend. Halkanna wuxuu ka yahay asxaabta uptrend ayuu ka yahay suuqa halkan. Uptrend ayuu ka yahay. Okay, sellers ayaa soo galay xoog badan. Very good. Sellers ayaa soo galay. Okay. The buyer. Okay. Buyer ayaan u geynaa suuqan asxaabta. Waxay noo soo laabto. Okay. Asxaabta suuqa buy ayaan u galnay. Marona wax ku dhamaado. Good. Second trade waa faaiidnay asxaabta. Okay. Third trade suuqa saddexaad ayaan fiirsanaynaa asxaabta. AUD chip waa ige. AUD chip boy. Okay, this is level aynu dhigano. Level aynu dhigano asxaabta. Good. Suuqa saa u jeedaan asxaabtu halkan wuxuu ka yahay major downtrend. Suuqa halkanna wuxuu ka yahay minor uptrend. Is a minor uptrend. Good. Okay. Ka war suginaa asxaabta. AUD Great British AUD. Halkan wuxuu ka yahay good trend. Okay. Way rejection ayaa dhacay halkan. Is halkan wuxuu ka yahay suuqa uptrend. Good. Okay, suuqa halkan buy ayaan u galay asxaabta. Waxaan orana wuxuu ku dhamaado suuqa. Three, two,
1. Very good. Track saddexaad waan faa'iidnay asxaabta. Good. Okay, this is AUD GPY. AUD GPY. Euro New Zealand. Suuqa soo jeedaan halkan wuxuu ka yahay major uptrend. Aad buu halkan major uptrend uga yahay asxaabta. Okay, is level aan raadino. Good. Yeah. Suuqan wuxuu ka yahay bet. Very rejection badan ayaa halkan ka muuqda. Okay. Okay. Uptrend halkan wuxuu ka yahay downtrend. Halkan wuxuu ka yahay downtrend. Asxaabta. Okay, noogu celi Euro New Zealand. Asxaabta insha Allah markaan tira ka dhameyno ayaan intaan ku guuleysanay aan sheegi doonaa sababta aan ugu guuleysanay hadduu aalidmo. Okay. Waxaan way dhaafay. Timaahan. Okay, major downtrend isna xawayaan waa upper minor uptrend. Okay, 5-second confirmation. Okay. Okay, suuqii sal ayaan ogalnay asxaabta. Okay. Very good. Ku guuleysan asxaabta. Trade-kii afraad. Very good. Okay. Okay, asxaabta halkan ayaan ku joojinaynaa today. Waxaynu galnay after trade. On winner. Very good. Great profit. Lacagta doonaa lagu galo $1, $1, $10. Muhiimada waxa weeyaan profitka aad samaysay. Good. Okay, asxaabta aynu sharaxno mid walba iyo sababta aynu galnay. Asxaabta tradekan AUD
ee ugu dambeeyay aan sharaxna sababta aan galnay guys waxaynu dhiganay soo jeedaan level ayaa halkan inoo ahaa levelkan suuqan wuxuu ahaa soo jeedaan halkan major downtrend ayuu halkan ka ahaa major downtrend minorka suuqan wuxuu ka ahaa uptrend so waxaan sameeyey maadaama halkan aan level dhigtay this is soo jeedaan waxa weeyaan waa doge candlekan soo jeedaan waa doge so waxaan sameeyey 5 second confirmation halka minida waxaan u bedelay 5 second 5 second ka xoolo isticmaalay confirmation ka ayaa laga helaa xaqiijin saa suuqa uu sii gashid oo uu sii guuleysatid confirmation kan waxa weeyaan waxaanu aragnay this candle sell this also candle sell so suuqi waxaan u sii galnay markaa sell confirmation ka 5 second ama 10 second ka waxa weeyaan waa candlada noocan ay confirmation noqda this is candle hada falaarta ay saaran tahay confirmation ayuu noqdaa sidoo kale kan ay sidoo kale ay falaarta saaran tahay confirmation ayuu noqdaa so labadaas confirmation ayaan helay suuqii waxaan u sii raacay sell walow ay fiican tahay the first confirmation marka hesho inaad markiiba suuq gashid so aniga waxaan galay haddana another second confirmation waana ku guuleystay suuqii win ayuu noqday marka confirmation kan asxaabta waa muhiim waa la isticmaalaa insha Allah habeenkii khamiista ay soo gali doonto ayaan sharixi doonaa cashirka maanta cashirku naga baaqday hadduu aalada markaa habeenkii khamiista ay soo galayso insha Allah soo dhig doonaa confirmation kan iyo waxaas anoo sharaxaya lecture-dan hawalwalin don't worry so asxaabta sidaas ayaan ugu guuleysanay trade koowaad wuxuu noo noqday candle wuxuu ku dhamaaday sell ah trade-ka xiga sidoo kale waa AUD Canada waxaanu yaalay level soo jitaan level this is a level so levelka ayaa noo yaalay suuqa saa u jeedaan sidoo kale wuxuu ahaa directionkiisa majorkiisa wuxuu ahaa downtrend minorkiisana wuxuu ahaa uptrend so sidoo kale isagana waxaan isticmaalay 5 second confirmation aan isticmaalay 1 minute halkan aan tagay 5 second confirmation ayaan isticmaalay sababta aan suuqa aan buy ugu sii galay aan ugu sii raacay waxa weeyaan waxaan arkay this is candle kan waa confirmation this candle kan buy waa confirmation also this waa confirmation so suuqii waxaan u sii raacay buy waana ku faa'iiday asxaabta candle-kii markaa wuxuu ku dhamaaday saa u jeedaan waa kana candle-kii wuxuu ku dhamaaday candle buy ah maadaama sellsku halkan ay joogaan this is halkan waxaa jooga sellskii so suuqa wuxuu bixinayaa this gaabkaas ayuu bixinayaa so gaabkaas ayuu suuqii bixiyay u jeedaan asxaabta confirmation ka suuqa u galana waa sidaan hadda inay tusay 5 second ka ayaan tagay waxaan arkay this candle kan buy ah also this candle buy ah labadan candle markaan confirmation ay noqdaan insha Allah waan sharxi doonaa cashirka aan soo wadno ay ku jirtaa so this is two candles kan ayaan confirmation ay noqday suuqii markaa waxaan u sii raacay buy waana ku guuleystay asxaabta okay trade-ka saddexaad saa u jeedaan suuqii also level ayaynu dhiganay halkan saa u jeedaan asxaabta directionka suuqana majorkiisa wuxuu ahaa downtrend oo jeedaan it is downtrend suuqii hoos ayuu sii soo socday downtrend majorka ma kala fiiriyo minor
trendkana wuxuu ahaa uptrend suuqii halkaas uptrend ka korka ayuu sii socday so levelkan ayuu markii suuqa inoo gaaray waxaynu aragnay rejection this is rejection of sellers candlekan waxaa ujeedaa halkaas suuqii waxaa kasoo galay rejection ku sameeyay sellerskii also halkan candlekan yarka casaanka rejection kor ayaa ujeedaa oo sellerskii soo sameeyeen also candlekan buyga ah xooga badan kor waxaa laga soo sameeyay rejection sidoo kale halkanna maxaynuna ahayd level soma level ayaynu ahayd so suuqii halkaas ayaan u soo galnay so waxaa halkan soo galay sellerski ayaa soo galay haddana suuqii halkan waxaa soo galay sellers so sellerskaa soo galaan halkan waa level asxaabta halkan waa level halkaas soo jeedaan waa level sababta level u yahay this waxaa waaye halkan buyers ayaa kasoo galay haddana halkan buyers ayaa kasoo galay haddana also halkan buyers ma jeedaan halkan buyers ayaa kasoo galay asxaabta so suuqana halkan wuxuu ka ahaa minerka uptrend haddana suuqii waxaan u galay buy anoo og halkan suuqan inuu candle buy noqonayo ugu dambeyn laakiin wuxuu iga noqday doji entry pointigeeda ayaan ku guuleystay oo meel fiican ay entry point ii ahaa waana ku faa'iiday asxaabta suuqan okay tradeka afraad sababta aan ugu guuleysanay sidoo kale halkan level ayaynu dhiganay asxaabta level ayaynu dhiganay soo jeedaan so suuqana directionkiisa majorkiisa wuxuu ahaa downtrend majorkiisa wuxuu ahaa downtrend falaarta raac majorkiisa wuxuu ahaa downtrend majorkiisa wuxuu ahaa downtrend soo jeedaan asxaabta minerkana wuxuu ahaa suuqa directionkiisa uptrend asxaabta uptrend weeyaan so halkan waxaa soo galay suuqii sellers so halkan waxaa lagu sameeyey rejection candle sellka oo jeedaan rejection ayaa lagu sameeyey also candle sell ayaa soo galay rejection of buyers ayaa lagu sameeyey then haddana waxaan usoo galay suuqii marka halkan buy maadaama halkan rejectionkan aan u jeedo halkan ay buyerska ay soo galeen ay soo riixeen halkan ay buyerska soo riixeen also halkan uu yahay level waxaan suuqii usii galay asxaabta buy waana ku guuleystay good entry meel fiicanna waan ka galay asxaabta aad baan salaamaya asxaabta dhammaantiin insha allahu cashirka labaad maanta way naga baaqday insha allahu habeenka khamiista ay soo geli doonto ayaynu soo dhigi doonaa barteeda youtube-ka cashiro muhiim ah cashirka labaad waa cashir sidoo kale aad u muhiim ah in badanna idin anfici doona hadduu aan la idmo please subscribe-ta lagu dadaalo asxaabta like-ta share-ta comment asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu